wafdi ballaaran uu hogaaminayo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaac Falay isla markaana ay ku heliyaan xildhibaan Ruush Carraale oo ka tirsan xildhibaanada golaha baarlamaanka agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Maxamed Cilmi taliyaasha qaybeedada booliska iyo asluubta ee gobolka Sanaag iyo siyaasi Maxamuud Saalax Cabdi ayaa saaka xadhiga ka jira dhismayaal cusub oo laga hirgeliyay degmada Garada kuwaas oo ay ka mid yihiin saldhigga booliska iyo guriga martida iyo dhismayaal cusub oo lagu daray dowladda hoose ee degmada Garada waftigan oo meel fagaaraha kala hadlay dadweynaha ku dhaqan degmada Garada iyo goorreyntii waxa halka ka hadlay maayirka degmada Garada Mudane Faarax Aadan Ciise hadaladiisana waxa kamid ah sida tan maadaama aynan wax fara badan oo dowladda dhexe ka socda oo waftiyadu inkasta ay nagu badnaayeen haddana jaarsiyadu ay aynan magaranaysaa bil kasta aynan helin inaynu la kulanno magaranaysaa waftiyada heer qarana marka waftigan oo qaab heer qarana si wanaagsan insha Allah ayaynu magaranaysaa aynu u dhageysan doonaa waxa ay noo sheegaan wax la weeraynayo sidoo kale iyaguna waxa halka ka hadlay siyaasi Maxamuud Saalax Cabdi Axmed oo isagoo ah mulkiilaha kambaliga hirgeliyay dhismayaashan ee tayo xildhibaan Ruush Carraale iyo agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka horumarinta reer miyiga Maxamed Cilmi taliye qaybeedka ciidanka booliska ee gobolka Sanaag iyo caaqil Maxamed Cilmi Maxamuud oday Axmed Jaar hadaladooduna waxa kamid ah sida tan mahadnaqnaa marka labaad waxaanu mahadnaqnaa dawladii inoo qabatay aynu inagu codaynay aynu inagu dadkii dadaalka ugu badan aan filaynay inaynu ahayn dadkii dadaalka badan geliyay inaynu inagana ay wax inagu soo celiyaan cawl celinaynu hello oo aynu dadaalkeennii wax ka helno imaanshaha mashruucani iyo kuwii kale ee la socday ee gaadiidku ka mid ahaayeen ma ahayn arrin uun iska yimi waxay ahayd arrin dadaal iyo kollayba waqti baa la gelayaa doorashooyin iyo iska soo dhow yihiin waxaa idin iman doona nima waxba ka soo horreyn waxaa idin waxna sidin nimaad markaana wax tuurta ku sideen waxna ka soo horreyn baa idin iman doona waxa uu sheegaana aan la garanayn inay run noqon doonto iyo inay daboobi doonto laakiin waxa kaloo dhici karta inuu oo muhiima inuu qofku garanayo meelihii laga soo qaadayo sidii loo soo qaadayay arrinkaana waa xasuusanaysaa meel baa iyadana ku calaamadinaysaa dhistay dhismahan gas hausta degmada Garada guriga martida degmada Garada oo ay wasaaradda madaxtooyadu fulisay oo aanu aad iyo aad ugu mahadcelinay wasaaradda madaxtooyada iyo wasiir Maxamuud Xaashi waxa si gaar ah ugu mahadnaqayaa waxaan ammaan uga jeedinayaa wasiirka wasaaradda madaxtooyada Mudane Maxamuud Xaashi Cabdi oo ah wasiir ka soo jeeda deegaankan maantana jooga wasaaradda madaxtooyada hawlahan dabakariixoodii iyo hirgelintoodiina qayb weyn iyo gacan weyn ka qaatay la'aantii aanay soo gaadhin wasiiru dawlaha wasaaradda waxbarashadu ka mid yahay waxa ruuxantii gacan weyn ka qaatay mashaariicdan oo raggii annaga dabada naga kaxeeyeen riixi ka mid ah gudoomiyaha shirkaddan dhistay halkan Mudane Maxamuud Saalax Cabdi oo hadalkayga horreeyay waxay Soomaalidu tiraahdaa hadii lagu sheegana waa la sheegaa hadii lagu sheegana waa la sheegaa anigu de xildhibaan horaan ahay inaan soo noqon doono Ilaahay baa ogi waxa laga yaabaa inaan dib isu soo sharaxin isaga de mala waa ka wareysana waa dilaac maagane odagu waxaan u oranayaa oo waan ogahay inuu ka mid yahay ragga qiimaha badan ee degmada u sharaxan ee aan rajaynayo inaa kulliba mid ka mid ah dooran doontaan hadayayar sidaynu wada ogsoonahay deegaanku waa nolosha qofka dadka bilaadanka sidaynu wada ogsoonahay deegaankana wuxuu yahay waa deegaan xoolo dhaqato ah haddaan deegaanku hagaagina xoolaha badan iyo arigan badan ay hagaagi maayaan waxaan idiin sheegay horta marka ugu horeysa nolosha deegaanka weeye in deegaanka la ilaaliyo gabagabadina waxaa munaasabada soo afmeeray barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaac Falay hadaladiisana waxaa kamid ah sida horta waa Ilaahay baa mahad subhanahu wa ta'ala waxaanu mahad celinaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamuud Siilaanyo oo intaas oo mashruuc hal mar fuliyay baa runtii aynu aad ugu mahad celinayna waxaanu leenahay madaxweyne Ilaahay miisaadkaaga xasanaadka ha kugu daro markii uu ahaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye mucaaradka ah ballanqaadadii uu sameeyay oo bay qayb ka tahay waxaan dareemayaa ama wada ogsoontii boqolkiiba 90 inay fuleen ayaa dareeyay runtii Omar Sayre muqbahayaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland